maadaama iskaabula aad u badan tihiin su'aalan idin weydiin gabdhuhu iskaabulada ma ku jiraan su'aashaas aan isweydiiyaa meelaha qaar waxaa la yiraahdaa gabdhuhu iskaabula ma maxaa yeelay gurigeeda markay joogto waxay u dhaqantaa sidii marwo oo kale u dhaqantaa cuntada ay karsataa dharkay meerataa xitaa mararka qaar walaalaheeda dharka u dhaqdaa yani markaan leeyahay sidii qof marwo ay u shaqaysaa walaalahooday dharka u dhaqdaa gurigay nadiifisaa way taqaanaa shaqo guri wax looga baahan yahay laakiin inta badan waxaa la dhahaa dadka iskaabulada ah waxaa lagu tilmaamaa ragga iskaabulada maadaama anigu iskaabula soo ahaa jiray haddana idima sheegin aan reer leeyahay dhibaatada xilligii iskaabulada aan ku soo jiray aan dareemayaan rabaa inaan wax yar idinla wadaago maadaama hadda adinku ay ku jirtaan oodna wax badan aadna ka sheegi karin horta koow dhibaatada iskaabuladu ay leedahay waa wehel la'aan meeshaas sariirta kaligaa cidlo ku tahay wax badan ayaa dareemaysaa oo kaa maqan waana sababta keentay dhalinyaradu markasta meelaha guurka looga hadlaayo inay aad u soo buuxiyaan oo ay u jecel yihiin qodobka labaad qofka iskaabulada ah waa qof dawaqsan markasta waxaa la sheegaa qolo fariin khaldan baraha bulshada ayaan dhexe ku baahaysaa waxay tiri qolo qaramada midoobay la yiraahdaa warbixin soo saartay oo ay leedahay qofka iskaabulada waa qof naafadaaba lagu daray waxaa ka mid ah qofka iskaabulada ah dhowrsanaantiisa ayaa aad khatar ugu jirta oo waa qof dhacdhac badan waana ka duwan yahay qofka reeraha leh daryeel la'aana haysa qofka iskaabulada ah oo daryeel ma hayo runtii ma la daneeyo qofka iskaabulada ah qof aad loo sii daneeyo ma aha meesha aniga hadda 3 isbuuc ee Soomaaliland ku sugnaa ay leedahay xaajiyo waa soo raagtay aniguna aan leeyahay xaajiyo 3 isbuuc 3 sano oo kale ayay iga dhigan tahay dulqaada waa soo iman doona insha Allah taala qofka iskaabulada ah dulqaadka ku yar qof aad u dulqaad badan ma aha waxyaabo badan oo ka xanaaqaya maxaa yeelay xasiloonida iyo sakiinada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay dadka guursada ayaa ka maqan qofka iskaabulada ah walwal iyo walaaca ku abuuran Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana sheegay guurka in deganaansho laga helo waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilayha ma huwa litaskunu ilayha sakiinadaas qofka ka maqan qofka iskaabulada ah qodobkan aad u garanaysaan waxa waaye dhafarkiisa badan iyo soo jeedka sidaas oo xilli kasta u soo jeedaa habeenkii saq dhexe markaas oo ku haya xabiibti waa ku jeclahay biyahanka dhaxarka goormo xabiibti ku dhahay gabdhaha rabaa inaan meeshaas aad ugu baraarujiyo xabiibti iyo macaanto qofkan ku dhahayo oo dhalinyarada ah goormo macaankaaga iyo qaraarkaaga dhadhanshay maba oosa ku arkin gabdhuhuna masaakiin way runay moodayaan markii xabiibti la dhaho waa daacad waa iska maskiin waana qalbi jilicsan yihiin gabdhuhu nin kasta oo xabiibti yiraahdo ama jacaylkeygii ama macaanto waxaasoo dhan runay iskaga moodaysaa markaas wuxuu ugu sii dararayaa waliba erayadii fanaaniinta ama ay suugaanyahanadu ay ka tiriyeen arrimaha jacaylka markaas ay gabadhu sii bulaalaysaa buuray sii fuulaysaa dheer halkaas looga soo tagaa buurta ay sii saarnaanay inay ka soo dhacdana halis ay u tahay jacayl baa ay wada oo ka waaban maayo anigoo wacan iyo adoo wanaagsan waqti ha isku keensimo runay moodaa erayadaas qalbigii buuxsamay markaas gabar kasta markay ku soo wacdo waxay leedahay inaan jeclahay ima daneeyo saan yeelaa su'aalaha ugu badan oo la soo weydiiyo ninka iskaabulada ma aha mas'uul qof mas'uul oo wax lagu aamini karo ma aha runtii maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa tilmaamay aayad quraan oo waxaa jirta ar-rijaalu qawaamuuna على النساء رجع مسؤولية جوري عيجا إسكاله نينك إسكابولا ده ودمع بدنيه دمع عيسى بدن قبل لي مرو ولا طبع أما شيء أما مقال هماك قبر وحي لهبة وجلعة أو إنها يقول رعاة